ما doonayno xukuumaddu inay isticmaasho crocodile tears ilmada iyo xaaska oo ah inay shacab kala baroortaan qofka markuu muqdisho joogo hadduu israado dalka ku soo noqo waa loo hanjabaya ma iman kartid baa la leeyahay ka dalka joogana ka bax baa la leeyahay dhuumashay ku tageen maalinta xaqa alle halka ku haleelo si kasta ha u dhacdeena waxaad arkaysaa iyagoo ooyayo leh hana loo keeno saf awalka taagan waxa weeyaan maamul hawa laga fikiraya oo la isku haysto la diyaarad baa la celis arin masiiri ama shii taala shaqaalihi ka shaqeynayay waxa weeyaan naftood horeyaasha ay afarta habeenimo tagayna xilliga waxa weeyaan wax bishaara ma qabay oo noo soo cabanaya xafiiskaaga horta hagaaji intaad maamulka hawada aanu gudbaan Umar Leen oo xisbiyadii mucaaradka u soo cabanayeen wax bishaara ma aan qaadan ma waxa la doonaya in inta joogtaana maanta xamar tagtaa la doonaya miya ma inta joogtaana inay naga tagtaaba la doonaya miya xisbiga kulmiye mashruuc uu soo qaatay in shaqaalaynta mushaharlaan lagu rido si ay u cararaan ay u caroodaan ay u tagaan waxaan leenahay xisbiga kulmiye laba kala daaya oo hinta iyo waxa weeyaan jiliinka dambe kala daaya maanta ma maqli karno in la ilaahdo iyadoo taasi jirto waa bilaa mushahar oo mushahar ma qaadanayaan la xaashi calik wax dhici kare maaha على لوح مشاهرة ما يقادن وتجا صور هدي أي إلى هذا مشاهر كمان قادني أنا قاعد دين تيجي هينو كينينا لو بنوضح مشاهرة ما يقادن شقالاس حكومة كل مية الله بقى بدت كوا عيرسا مركب كوان عبروني على شغلين بيوع وحوي بحصاي إن حمر تجاني كوك لفته هل كان لجو أرك الشقالة لجو تبعي لا تصنادات أو وحوي الخبرات له أو أقل له أو كرتله أو هرمر له إن ما طلع يرادو حوي هر عطال كدريرة waxa kalifay waa xukuumadda fashilka xukuumadda kulmiye xogaye ku xigeenka ganacsiga ee xisbiga mucaaridka ee wadani oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay in shaqaalaha hay'adda madaarada Soomaaliland ay labadii bilood ee ugu dambeysay aanay qaadan wax mushahara isagoo dhanka kalena eedeymo u jeediyay maareeyaha hay'adda madaarada Soomaaliland Umar Sayid awalan maanta waxaan isugu yeeray inaan ka hadalno waxa weeyaan qayladaan ka soo yeeraysa waxa weeye shaqaale weynaha madaarka Hargeysa shaqaalaha madaarka waxaynu ognahay waa shaqaale ku shaqeeya duruuf adag xilliyo adag waxa laga yaabaa shaqaalaha madaarku xilliga ay shaqada galaan waa xilli qof kastaaba waxa weeyaan uu hurdo saacada shaqada galaan waa 4 habeenimo ay shaqada galaan shaqaalaha 4 gala waxay ka baxaan habeenimada kale ka baxayaan macnaha waqtigeeda ka baxayaan shaqaalaha xilliga 4 kacaya ee xilliga tagaya waxay inaga mudan yihiin ixtiraam gaara ay mudan yihiin ka warhayn gaara bay mudan yihiin inagoo og walaalayaal waayihii dambe inuu buuq badan ka dhashay maamulka hawada inagoo og in lagu kala dheereeyay ama lagu kala tagay khibradda shaqaale inagoo og in shaqaalihii madaarka Hargeysa xisbiga kulmiye ee muddaxileedkiisu dhamaaday uu waxa weeyaan ku dhawaad 40 qof oo shaqaale ah وهرعت كدريري مدارك عقال international airport وكدريري فشل حكومات هي سياسات هي فشل حكومات مدحيلات كده دماضي وحط صالك وقف فلان شغاله بعيرسه انتي ما تصوهر ماشي شوكت ظروفت هذا كل شقيسه بشي كواد جانوري الا بشا مانتا aynu ku jirno ee February oo dhamaada wax mushahara ma qaadan cabashada shaqaaluhu way nagu badatay ayaamihii ugu dambeysay way soo tareysay ka xisbiyaha waxaanu eegaynaa oo islahayn iyadoo ay taagan tahay masiirkii hawadu haddaad ka hadashaan waxa loo qaadan doonaa in xisbiyada mucaaradku uga faa'iideysan doonaan galdaloolooyinka oo la oran doono warbalmay ahaat anagoo dhowraynaanu dib u dhignay waxa se ilaa iyo ayaamihii u dambeysay soo noqonayay inaan shaqaalu wax mushahara qaadan waxaynu ka hadlaynay Allah u naxariistay Cabdinaasir oo Muqdisho lagu dilay oo u tagay xukuumadda eriday oo tiri tag ayaynu arkaynay maanta shaqaalaheena madaarka jooga waxa la leeyahay mushahara ma qaadan ubad bay ku koriyaan dhalinyaro weeyaan xaasas weeyaan waalid weeyaan inaanay xilliga dhididkoodii oo aan qoyin in xaqooda la siyaabay hayde in maanta ay noo soo cawdaan inay xisbiyadii mucaaradka wadaniyo wax mushahara xogay ma aan qaadan telefoonkooda maalmaha ugu dambeysay cabashadoodu way nagu badnay ina kale yiraahdo Umar Sayid ee madaarka jooga ee maalin kasta sawir ku soo galay madaxtooyada ee hawadan maamulayo diyaarad baan celiyay waxaan leeyahay shaqada mas'uuliyad waxay ka bilaabmataa xafiiskaada gaalada waxay dhahdaan charity begins at home صدقات guriga ka mas'uuliyadu xafiiska ka bilaabmata walaalayaal waxaan leenahay wax mushahara ma qaad waxaan doonayaa markaa shacabka inaan u iftiimiyo dhaqaalaha soo gala madaarku muxuu yahay dhaqaalaha intee leeg weeyaan dhaqaalaha ay ka mushahar la yihiin shaqaalihi miisaaniyada sanadkani kuma jirto akoon gaar ayaa lagu shubaa waxa weeyaan dhaqaalaha ka soo gala madaarka soo gala muxuu yahay dhaqaaluhu waxay qaadaan lacag la yiraahdo security fee oo ah $26
waxa weeyaan $66 waa fixed VIP charge ka waxay qaadaan $30 parking-ka waxay qaadaan $1 ilaa $3 waad aragteen markaad madaarka gasho hadii gaarigaagu saacad wax ka badan taagnaado $2 baa la weydiinayaa hadduu saacad taagnaadana waxa lagu odhanayaa $1 bix lacagta inta leeg iyaga sheegi waxa jira adeeg kale oo la yiraahdo dhigo oo dhoof oo isaga laftiisu madaarku uu sameeyo Cumar baana soo kordhiyay Cumar adeega uu soo kordhiyay dhigo oo dhoof qof kasta $2 baa laga qaadaa waa maalintii badana adeega waxa isticmaala dadka Kenya hay'adaha iyo Kenya iyo Ethiopia meelaha taga baabuurkooda intay parking-ka dhigtaan bay ka dhoofaan maalintii waa $2 waan dareemi karnaa qofka bil maqnaada 10 baabuur oo bil laga maqnaaday lacagtu intii tahay waan dareemi karnaa waxaynu ognahay walaalayaal shaqaalaha waaga la cayriyay ee xamar lagu dilay ee garoowe lagu dilay fashilka xukuumadda kulmiye ku tageen xukuumadda kulmiye laba qaab bay dadka u cayrisa marka koowaad caburin iyo cagajugleyn bay waxa weey amba bixisay in xamar tagaan ay ku galiftaa waxaynu ognahay dhalinyaro badan oo warbaahina oo saxafiyiina oo kii ugu dambeeyay in Shaafici Shaaciye la yiraahdo dhalinyaro ah oo wariye ah uu soo duubay lahaa firdad baan Hargeysa uga soo baxay taas dadka way ku eriyaan caburin iyo cagajugleyn bay ku eriyaan kow lambar 2 waxay dadka ku eriyaan inay shaqada ka cayriyaan halkee lagu arkay shaqaale lagu tabcay 20 sanadood oo waxa weeyaan khibrad leh oo aqoon leh oo karti leh oo horumar leh in maanta la yiraahdo waxa weeyaan hadcad halka ka dareera waxa kalifay waa xukuumadda fashilka xukuumadda kulmiye ma doonayno xukuumaddu inay isticmaasho crocodile tears ilmada iyo xaaska oo ah inay shacabka la baroortaan qofka markuu Muqdisho joogo hadduu israado dalka ku soo noqo waa loo hanjabaya ma iman kartid baa la leeyahay ka dalka joogana ka bax baa la leeyahay dhuumashay ku tageen maalinta xaqa alle halka ku haleelo si kasta ha u dhacdeena waxaad arkaysaa iyagoo ooyayo leh hana loo keeno safl awalka taagan xukuumadda iyo xisbigeeda kulmiye waxa leeyahay laba kala daaya inaydu marka hore dadka ehelkoodii la joogay ee waalidkoodii la joogay inay ka dhalinyaro Hargeysa jooga xaasli caruur la jooga inaad eridaan oo cayrisaan ka daaya markaad cayrisaan hadda ka daba barooranine marka hore ka daaya waxaan doonayaa inaan cadeeyo mowqifka xisbiga wadani arinta hawada muxuu yahay mowqifka xisbiga wadani ee arinta hawada ku aadan wuxuu yahay anagu waxaan taageersanahay oo soo dhaweynayna in Soomaaliland hawadeeda u madax banaanaato number 2 gorgortana aan laga gelin xukuumadda xisbiga kulmiye imika taladeedii dhamaatay 7 bilood baa u haray 7 bilood maalinta dhamaato ee xisbiga wadani maado qorshahayga koowaad wuxuu yahay inuu shaqaalihii tagayna soo celino khibradoodina laga faa'iideysto kuwa maanta joogana in khibradooda laga faa'iideysto la hayo maanta walaalayaal waxaynu u baahnay in shaqaalaha madaarka jooga mushaharka dhabal looga dhigo waayo waxay hayaan arrin naftood hornimo ah qaranka sumcadiisa bay difaacayaan qaranka sumcadiisa bay hayaan qaranka sumcadiisa bay kor u qaadayaan maanta ma maqli karno in la ilaahdo iyadoo taasi jirto waa bilaa mushahar oo mushahar ma qaadanayaan la xaashi calik wax dhici kare maaha waxaanu leenahay dhaqaalaha madaarka soo gala waa dhaqaale aad u badan waxa laga yaabaa bermot madaarka Hargeysa waxa soo gala lacag ku dhow $500,000 baa soo gala in maanta shaqaalihii ay ka mushahar laayihiin oo xisbiyadii mucaaradka u soo cabanayeen wax mushahar ma aan qaadan ma waxa la doonayaa in inta joogtaana maanta xamar tagtaa la doonayaa miya ma inta joogtaana inay naga tagtaaba la doonayaa miya xisbiga kulmiye mashruuc uu soo qaatay in shaqaalaha inta mushahar la lagu rido si ay u cararaan ay u caroodaan ay u tagaan war kuwii horena dhaqaale la'aan bay ku tageen oo fashilkiina siyaasad xumay ku tageen oo maamul xumay ku tageen kuwa maanta joogaana waxay ku shaqeynayaan ilaahay baa xaalkooda waa kuwa noo soo cabanayaan cadeymahoodii halka ku haynoon bulshada u soo horbidhigaynaa waa iyaga waxaan leenahay xisbiga kulmiye laba kala daaya oo hinta iyo waxa weeyaan jiliinka dambe kala daaya shaqaalahaasi xaq waxay leeyihiin mushaharkoodii in la siiyo inaanu saacad dib uga dhaco ma doonayno cabashadaas maalmihii ugu dambeysay way nagu soo noqnoqonaysay xisbiga kulmiye wuxuu ku fashilmay inuu xuduudihii dalka sugo ku fashilmay hawadiina inuu sugo ku fashilmay shaqaalihii inuu mushaharkoodii siiyo noloshoodii iyo waxoodii dabaqan ku fashilmay bal xisbiga kulmiye meel loogu soo hagaago ha yeesho shacabkana waxaan leeyahay war 7 bilood baa inoo haray nimanka inoo taleeyo waa nimanka awoodi la in shaqaalihii mushaharkoodii siiyaan mushaharkoodii habaynaye aynu u samirno oo 7 bilood aynu u samirno hawadan waxay ka qabanayaan ma jirto Cumarna meesha sawir buu joogaa iyo waxa weeyaan inuu waxa weeyaan dadka inda sarcaad u dhigay hadduu Cumar wuxuu TV-ga kaga hadlaa ay xaq ka tahay maanta shaqaaluhu mushaharkoodii ma ilaadeen inka dhalinyaro ay kuri ka jira kira laga rabo leed laga rabo waxbarasho laga rabo jaamacad laga rabo ilaa baan ku dheeray maanta kira qaadan mushahar qaadan ma aqli ba waxaas qofka muuminka xaq wuxuu leeyahay mushaharkiisa in la siiyo intaanu dhidiskiisu qalalin maanta arinta qadiyada aanu ka warwarsan waxa weeyaan maamul hawa laga fikiraya oo la isku haysto in diyaarad baa la cilis arin masiiriya meeshii taala shaqaalihi ka shaqeynayay waxa weeyaan naftood horeyaasha ay afarta habeenimo tagayna xilliga waxa weeyaan wax mushaar ma qabay oo noo soo cabanaya xafiiskaaga horta hagaaji intaad maamulka hawadaana u gudbaan Cumar leen imikii haat saxaafada waxaan leeyahay taga oo waraysto oo ninkaas shaqaalaha sababta mushaharkooda uga haysta ha sheego madaxweyne dadka mas'uuliyadda oo igmatay ee diratay haddaanad la qabin mas'uuliyaddeeda waxa weeyaan waa in lagu xisaabtamaayo miiska la dulkeena
تكلو waxa kale oo ognahay in faragelin madaxtooyadu ay ku hayso shaqaalihii maamulkii madaarka oo qofkii la doonay madaxtooyada laga soo qoriyo Cumar meesha isagu ma hayo waa lagu dul maamula awal hay'adda madaarka waxay hay'ad madax banaan institution madax banaan shaqaalaheedu madax banaan dhaqaalaheedu madax banaan inagoo walba dhaqaalahaan inaan madax banaanayn maanta mushahar ahaan ma madax banaana taasaan maanta ku soo gabagabeynaya ka xisbi ahaan waxaan u tacsiyadeynayna eheladii marxuumkii garowe ku dhintay labadii marxuum ee Muqdisho ku dhintay waxaan leenahay samiriye iimaan waxa weeyaan maamul xukuumadeed u baahan haystee waxa weeyaan dadkoodii dalkooda way jecel yihiin dadka firdhinayana waa kulmiye firdhiyo isku bedelo dadka isaga firdhinayo waxa weeyaan wadankii ka eriyay intaasaan maanta isagaad weydiin doontaan wuxuu mushaharka uga haysto laakiin qof laba bilood shaqaalaan mushahar qaadan qof kasta oo damiir loo dareemaya xaq wuxuu leeyahay qof kasta inuu dhiidkiisu qoyin mushaharkiisa xabso way isbahano miisaaniyada iyo maamulka shaqaaluhu way kala madax banaan yihiin laba bilood mushahar ma ay qaadan haddii miisaaniyadu jirto waa la oran karaa oo daraska miisaaniyada bisha dambe waa loo haystaa laakiin bishii January tan midna ma ay qaadan ya su'aal kale xalaal wax mushahar ma ay qaadan u tago soo wareysta haddii ay idhaahdaan mushaharkii waan qaadanay annaga cadeynteeda hayno keenayna laba bilood wax mushahar ma ay qaadan shaqaalahaas shaqaalaha madaarku wax tiri wax mushahar ay qaateen ma jirto hadda kugu celin saxaafad baa tiina soo baaray waxa jira inamo shaqaale madaarka ka tirsan oo shaqeeya oo aan tartan u marin oo maamulka madaarka ka tirsan oo aan tartan u marin oo aan meel soo marin oo toos loo keenay baa jira saxaafadii baa tiina baaro tago soo baar Cabdulle Maxamed Abbas Honkeba TV Hargeysa